kulan iyo aragti suuban idil ahaantiinba khiyaartayna daawanaysa meel kasta oo aad joogtaan kusoo dhawaada RTN iyo barnaamij waraadka hawraarsan oo si toos ah idinkaga soo baahaya stuudiyaha dhexe ee magaalada Nairobi. barnaamijka alaaba waxaa halkan idinkaga soo jeedaya idinlana socodsiin doona xilligan anigoo Cabdilcasiis Barrowa iyo waliba saaxiibkay Cabdi Axmed. qodobada aad ku daawan doontaan waxaa kamid ah maxaad ka taqaanaa taariikhda gobolka Faca Weyn ee Hiiraan ee ku yaala dalka Soomaaliya? muxuuse yahay sababaha rasmiga ah ee loogu bixiyay magaca gobolkaasi? kheyraadkiisa muxuu ka kooban yahay? qaybo kala duwan ayaad uga daawan doontaa warbixino xagga la kala duwan daawanaysa oo barnaamijka hawraarsan aan idinkugu hayno. mid ka mid ah nabadoonnada Soomaaliyeed oo lagu magacaabo Badal Jaamac Xirsi oo ka waramay dhaqaalaha kobcaya ee dowladda Soomaaliya isla markaana afar ku goday hanaanka shaqo ee dowladda, isagoo sheegay in kobaca dhaqaalaha ay dowladda sheegtay in maalmihii ama bilihii ugu dambeysay ay sameynaysay aanay weli shacabku arag. waraysi ayuu RTN gaar ahaan barnaamijka hawraarsan siiyay, halkan ayaan idinkaga soo baahi doonaa. mashruuc biyo dhaaminana waxaa loo sameeyay shacabka ku nool magaalada Beledweyne, gaar ahaan kuwa danta yar, qaasatana kuwa ku jira xeryaha dadka barakacay ee halkaasi ku sugan. xildhibaanada Hirshabeelle oo wasiirka cadaaladda maamulkaasi su'aalo weydiiyay, qaarkood waxay u doodayeen xuquuqda muwaadin halkaasi ku xirnaa muddo 3 sano oo ay xildhibaanadu sheegeen in aan weli cadaaladda la horgeeyin. iyo waliba xildhibaano ka tirsan aqalka sare iyo waliba kan hoose ee baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya oo ka qayb galay mashruuc xariga looga jiray mid ka mid ah isbitaalada laga hirgeliyay gobolka Mudug, gaar ahaan dhinaca Galmudug. qodobada kale aan idin haynana waxaa ka mid ah qobrayaashii wargeysyada oo ay ka mid yahay qodob xiiso leh oo sheegaya in xisbiga mucaaradka ah ee wadanka Kenya ee lagu magacaabo ODM oo lagu soo eedeeyay baa la yiri rabshadihii dhinaca doorashooyinka ee ka dhacay wadanka Zimbabwe. sababtu maxay tahay loogu soo eedeeyay? barnaamijka ayaad ku daawan doontaan. madaxweyne Uhuru Kenyatta waxa uu socdaali doonaa wadanka Mareykanka isagoo lagu marti qaaday aqalka cad ee wadankaasi looga arrimiyo. sidaasi waxaa qoray wargeyska The Standard. qodobadaasi iyo kuwa kale ayaad goordhow ku daawan doontaan barnaamij waraadka hawraarsan RTN stuudiyaha dhexe ee Nairobi uu idinkaga imaanaya. jararak suuban jaalayaal mar kale ku soo dhawaada RTN iyo barnaamijka hawraarsan oo aan qodobada hore aanu ku bilaabi doono. qobanayaalkii wargeysyada iyo wali waxyaabaha saaka ee qoreen waxaa la fadhiya saaxiibkay Cabdi Axmed oo isaga shacnigiisa uu si weyn saaka u baxayo. Cabdi, maalin wanaagsan. oo waxaan subax wanaagsan. watahay kulay meesha joosmayaal waxa la yiraahdaa Cabdi haddii aan miro la soo meerin horta intaana weli u korgalin maaragtay wargeysyada maanta waxay soo qoreen si kooban ayaa waxaan rabaa maaragtay dawadaasha inaan ula wadaago. wargeysyada Kenya maanta waxay aad u xusaayeen 20kii sano laga soo wareegay qaraxii la beegsaday safaradda Mareykanka oo bartamaha magaalada ku yilay magaalada Nairobi. dad fara badan baa ku baxay qaraxaasi sidaan la soconay. watahay Cabdow in iyadoo arrintaasi ay jirkaan ku hormaro wargeyska The Standard oo isagu dhiisata ka hadlay oo wixii dhacay kulay dib uga sheekay. madaxweyne Uhuru Kenyatta waxaa lagu marti qaaday aqalka cad ee Mareykanka isagoo dhawaan u socdaali doona halkaasi si uu kulamo ula qaato dhigiisa wadanka Mareykanka Trump iyo waliba madax kale. bal waxaad inooga sheegtaa wargeyska sidee qodobkan u faalleeyay muxuu ku tilmaamay? horta waxa weeyaan Barrow madaxweynaha in lagu marti qaadi doono White House-ka 27ka bishan ayaa waxaa shaacisay afhayeenka madaxweynaha Kanzedena. marka shalay bay Mombasa ka hadlaysay. horta waxaad moodaa maaragtay baraha bulshada shalay iyo inta badan maaragtay wariyaasha bulshada baraha bulshada oo loo yaqaano bloggers ayaa waxoogaa dadkiiba waxoogaa anxiety, yani dadkiiba waxaa la geliyay inay wax sugaan wax aad u weyn. bimacna waxa lahaa madaxweynaha dalka ayaa 3 galabnimo oo shalay khudbad weyn ka jeedin doona Mombasa
madaxweynahana wuxuu ku maqnaa koonfur Suudaan wuxuu la kulmay maaragtay Salva Kiir iyo heshiiskii nabadda ee waddanka Suudaanta koonfureed adiga marka saddexda galabnimo sidii loo sugayo markaas baraha bulshada ayaa waxa is dhaafsanaya madaxweynaha ayaa waxa laga yaabaa inuu ka hadlo maaragtay isku shaandheyska cusub ee golihiisa wasaaraha markii dambe Kanze Dena ayaa soo baxday waxay tiri dabcan arinta kaliya waxay ahayd in madaxweynaha lagu martiqaadi doono White House-ka 27 bishan aan ku jirno oo maaragtay uu la kulmi doono madaxweyne Donald Trump waxa wargeyska wuxuu xusaaya maaragtay bishii shanaad Talyaaniga markii la joogay oo wadamada G7-ka wadamada dhaqaalaha ayuu madaxweyne Uhuru Kenyatta la kulmay Donald Trump dabcan wargeysyada waxay dhahaan waa madaxweynihii ugu hore Afrika oo khudbad ka jeediyo maaragtay kulan ay leeyihiin wadamada maaragtay qaniga ah marka wargeyska wuxuu xusaaya maaragtay kulankan oo la filayo inuu dhici doono 27ka ayaa wuxuu sii xoojin doonaa maaragtay xiriirka labada wadan waa tahay in kastoo aanay warbaahinta sida aan filayaan ay sadaal ka sii bixin labada dhinac waxyaabo ay ka hadli doonaan haddana waxaan jecelahay qodobka ka xiga ee wargeyskada Standard oo soo qaato runta xiisiisa leh inaad soo hadal qaado Musalia Mudavadi waxa uu sheegay inaanu ku degdegi doonin inuu Uhuru Kenyatta u taageero arrimahaasi maxay daarantaa buu yiri wargeysku sidee buu arrintan u Musalia Mudavadi isaga wuxuu leeyahay haddii maaragtay xisbiyada mucaaradka kulligood ay dhahaan waxaan taageeraynaa dawladda meesha waxa ka dhumaya maaragtay kobcinta dimuqraasiyada dalka ka jiro waayo dawlad waliba waa in la mucaarado waa in maaragtay khaladkeeda la sheego marka wuxuu yiri taas ayaa sabab u ah aniga inaan ku degdegi doonin inaan taageeri doono maaragtay madaxweyne Uhuru Kenyatta dawladda madaxweynaha Uhuru Kenyatta wali mowqifkayga wuxuu noqon doonaa mid mucaarad ah si maaragtay dadweynaha dantooda si fiican loogu gudo waxa uu leeyahay mucaarad mutaxan baa noqon doona waa tahay markii la eego wargeyska waxyaabaha sida goonida uu soo qaaday Mudavadi isla markaana ku qasbaya baa la leeyahay in gadaal arintan ay ka riixayaan maxay noqonaysaa walow dhinacay mucaaradkii muxaafadkii aad moodo waayidii damban inay isku soo dhawaanayeen oo yaasal lahay way booqan doonaan madaxweynaha iyo Raila Odinga haddana hadalkan inuu ku soo beego xilli safarkaasi la qorsheynayay maxay tahay baad isleedahay kale waxa weeyaan wuxuu leeyahay wax la yiraahdo hallmark of politics yani maaragtay astaamo siyaasadeed ayuu statementka ama hadalka uu ku hadlay Musalia Mudavadi laakiin wuxuu maaragtay carabka ku dhuftay in maaragtay shakhsi walba mise xisbi waliba waxa weeyaan okay way u furan tahay inay taageeraan dawladda laakiin haddii loo fiirsanin meesha ayaa waxa ka baxaya maaragtay qiimaha dimuqraadiyada oo ah maaragtay wadankan waa wadan xisbiya badan leh wadankan mucaarad buu leeyahay marka mucaaradkii haddii codkiisa maaragtay la dhadhamin waayo waxa weeyaan danta guud ayaa waxoogaa laga exan ayaa weecanaysa qodob xiisa leh oo Standard sidoo kale sii qoray oo halkan iga muuqanaya waxa uu leeyahay wargeyska sideeba loo aruurin doonaa 118 bilyan oo lacagta shilinka dalka yaa aruurinaya xageesa laga aruurinaya maxay tahay lacagtaasi waxa weeyaan waa lacagta maaragtay lagu maalgelin doono muddada 5 sano lagu maalgelin doono maaragtay hadafka uu wato madaxweyne Uhuru Kenyatta oo ah guriyeenta oo qiimaha jaban marka lacagtan waxa loo baahan yahay 118 bilyan in lagu maalgeliyo maaragtay mashaariicdaas marka lacagta waxa laga aruurin doonaa shaqaalaha dhan ayaa laga aruurin doonaa laakiin shaqaalaha waa shaqaalaha dawladda kuwa dawladda ha noqdaan kuwa kambaniyada caadiga ha noqdaan soo agartama kaliya waxa la fiirinaa qofka haddii mushaharkaaga uu yahay 100,000 bil waliba waxaad bixinaysaa 500 marka bil mathala anigu adaan ku shaqeeyaa 100,000 baad isiisaa 500 aan bixinayo adna 500 ayaad ka bixinaysaa soo agartama marka taas ayaa waxa loo aruurinayaa maaragtay sidii loo meelmarin lahaa guriyeenta qiimaha jaban laakiin lacagta aad adigu qaadanaysid marka yaa u qalmaa guriyahaas inuu helo ama in laga gado waxa u qalmaa qof alaale qofkii dakhligiisa uu ka yar yahay 99,000 bishii 99,000 oo lacagta shilinka dalka qof alaale qofkii maaragtay
qiimahaas ay ka yaryihiin ka yaryihiin marka gurigana waxa weeye waa laga kireynaa waxa maaragtay waxa bixinaysa waxa la dhaho mortgage laakiin guriga ugu jaban wuxuu noqon doonaa guri maaragtay oo 3 qol iyo fadhigiisa oo wax walba isxambaarsan 3 milyan oo lacagta Kenya ayuu noqonayaa kaliya cabdu kulli dad fara badan baa guri heli doona hadii sida xaaladda noqoto watahay halkaas aan uga soo laabtay waxaan jecelahay The Nation inaan gudbiyo waxyaabaha saaka uu qoray qodobka ugu weyn baan ka soo qaadanaya wala sheeko xiiso leh runtii oo dad fara badan ay isweydiin karaan xisbi mucaarad wadanka ah oo doorasho wadan kale ka dhacday lagu eedeynaya qalaas ka dhacay inuu sabab u ahaa baa halkan ka muuqanaya Orange Democratic Movement oo ah ODM oo wadankan Kenya xisbi weyn oo mucaaradka ah Raila Odinga uu hogaamiyo waxa lagu soo eedeynaya in doorashooyinkii Zimbabwe ka dhacay rabshadihii daba socday oo isaga qayb ka ahaa waliba si weyn loogu dhaleecaynay sidee baa loogu soo eedeeyay waliba labada wadan xuduud uma dhaxeeyo iyo wadaag ma sababta maxay tahay horta fiir barrow wargeyska horta wuxuu soo xusaaya taariikhda u dhaxeeyo MDC iyo ODM xisbiga maaragtay mucaaradka Chamisa uu leeyahay ama hogaaminta marka waxa weeyaan Raila Odinga iyo Morgan Tsvangirai horta saaxiibo weyn ayay yihiin koodib intuu noolaa Morgan Tsvangirai waxa weeyaan qof waliba wuxuu ka qayb qaadan jiray munaasabad siyaasadeed uu kan kale leeyahay بالمثلا Tsvangirai haduu munaasabad siyaasadeed ku sameeynayo Zimbabwe Raila Odinga waa aadi jiray Tsvangirai xaggan uu imaan marka waxa weeye dad isku duubnaa ay ahaayeen xitaa markuu geeriyooday Tsvangirai waxaan maleynaa khudbadda ugu weyn Raila Odinga ayaa jeediyay marka doorashada intay socotay dabcan horta xisbiyada way isu baahan yihiin marka qorshaye siyaasadeed ama political strategist ayaa halkan laga diray ODM ba inuu soo kormeero ama uu soo indheeyo doorashada sidee u dhacday marka waxa lagu eedeynayaa xubnahaas ka socday ODM ayaa waxa lagu eedeynayaa in markii doorashadii ay dhacday natiijadii ay soo baxday ayaa wuxuu aad iyo aad ugu dhiirigeliyay MDC inay ku gacan sayraan natiijada doorashada oo ay dhahan inabataneedii ma qorqorsantay aad iyo aad marka waxa hadana lagu eedeynayaa in maaragtay uu ka dambeeyay qalalasyada ka dhacay maaragtay Harare marka wargeyska sidoo dhigayo arrimahaas ayaa waxa beeneeyay gudoomiyaha xisbiga ODM John Mbadi ayaa wuxuu yiri sida wax loo sheegayo sida wax u dhaceen isma laha waa kaafi kala dheer watahay The Star baan u imaanaya qodiisa ilaa iyo 4,000 oo guryo ah ayaa lagu wadaa in la jijabiyo iyo saameyn doonta horta waa magaalada Nairobi hadii aad fiirisid arintan shalay ayaa la bilaabay waxa lagu wadaa muddo 4 bilood inay socoto guryaha la jijabinayo waa guryo maaragtay ku yaalo qarka maaragtay Nairobi River mutay waxa jira webi Nairobi dhaxmarayo oo maaragtay inta badan wasakh fara badan ayaa lagu daadiyaa webigiisa fiican uma muuqdo hadda ka hor madaxweynaha wuxuu abaabulay guddi oo maaragtay qurxin doono iyo maaragtay martabadii ay Nairobi lahaan jirtay in la soo celiyo marka guddigaas ayaa wuxuu isla meel dhigay in ilaa 4,000 oo guriya in la jijibiyo degandegada laga dhigay shalay lagu bilaabay xaafadda maaragtay Kileleshwa waxa meel shidaal lagu iibiyo oo petrol station iyo meel lagu qaxweeyo oo Javaldo ayaa la dumiyay marka way soconaysaa marka waxa weeyaan guryahan ayaa waxa lagu eedayaa inta badan waa guryo waa gobol maaragtay ganacsi ah ama hoteelaha ahaadaan ama dukaamaha ahaadaan marka wasakhdii ayaa inta badan waxa lagu soo shubaa ayaa saameynaysa biyihii wabiga wata cabdu hadii loo yimaado arintan 4,000 oo guri hadii la duduminayo kullay saameyn bay dad ku yeelanaysaa hadda waxa wararku soo baxay wargeyska uu sheegayaa in maqaayada Jaffa la jijabiyay halkaas ku tiilay sidoo kale goob shidaal iyana la jijabiyay dadkan guryaha laga jijabinayo dawladda miyay magdhow siinaysaa ama soo iska baxay oo may horta fiiri guryahan sida wargeyska uu dhigayo guryahan waxay ku dhisan yihiin ama si sharci darro ah ayaa loo dhisay marka hadii si sharci darro loo dhisay magdhow ma jiro marka waa iska baxaysaa waa iska baxaysaa aad ayaad u mahadsantahay Cabdi Axmed ayuu ahaa khiyaarteena daawanaysa iyo waliba qodobadii hore ee barnaamijka Hawraarsan oo aynu wargeysyada iyo qubanayaasha saaka ay qoreen aynu ku falanqeynayna barnaamijka
way noo sii socon doonaa qodobo xiiso lana way noo soo socdaan waxir kadib watahay qodobadii kale ee barnaamijka hawraarsan ayaan guda galaynaa ee waxaan ku horeynayaa magaalada Beledweyne gaar ahaan si guud gobolka Hiiraan waxa uu ka mid yahay gobolada faca weyn marka loo yimaado taariikhda dalka Soomaaliya waxana uu ka mid yahay meelo dad fara badan oo halyeeyay ay ka soo jeedeen marka dib loo xoraansado sooyaalka gobolkaasi uu leeyahay in badan oo ka mid ah daayirta Soomaaliyeed ayaa isweydiinaya taariikhda ay leeyihiin gobolada dalka haddaba waxaynu ku hormaraynaa gobolkaasi iyo waliba taariikhda faca weyn uu leeyahay iyadoo qaar ka mid ah tuulooyinka hoos yimaada degmada Beledweyne mid ka mid ah ee wadato magaca guud ee gobolkaasi uu leeyahay Hiiraan tuuladaasi waa meel ku wanaagsan wax soo saarka isla markaana dad fara badan oo beeraley ay degan yihiin wariyahayaga Cabdulqaadir Nadaara ayaa warbixintan ku eegaya taariikhda gobolka Hiiraan isagoo wareysan doona warbixintan ku soo dari doona dad fara badan oo aqoonyahanka gobolkaasi kamid ah magaca Hiiraan waxa uu ahaa magac soo jireen ah oo loo yaqaano dhulka barwaaqada ah ee ku yaala bartamaha Soomaaliya xilli laga joogo kumanaan sano waxaa jirta ilaa iyo hadda tuulo leh magaca Hiiraan tuuladaasi waxay ahayd bartii ay deegaansadeen beeraleyda ugu tacabka wanaagsan uguna deeqsinimada badan sida la wada ogyahay gobolka Hiiraan juqraafi ahaan waxa uu dhacaa bartamaha dalkeena Soomaaliya waxa uu xuduud la leeyahay dhinaca bari ilaa iyo waqooyi gobolka Galgaduud dhinaca galbeed gobolka Bakool koonfur galbeed gobolka Baay koonfurna gobolka Shabeellaha Hoose iyo waliba koonfur bari oo markaasi inaga xigo gobolka Shabeellaha Dhexe ereyga Hiiraan waa erey Soomaaliyeed oo ay isticmaalaan beeraleyda ama dadka fasha oo tacbada beeraha waxaana ay ula jeedaan miraha ku hara ama looga tago marka laga goosto dalagii ku yaalay beerta taasi oo xilligii hore beeraleyda ay u isticmaali jireen ereyga Hiiraami tuulada leh magaca Hiiraan waxa uu soo ganacsatigi jiray Soomaali oo idil waqooyi iyo koonfur sidoo kale waxa deegaankaasi imaan jiray xilliga goosashada dalaga reer miyiga u dhow deegaankaasi waxaana la quudan jiray hiiraamaysiga beeraha maadaama dadka intooda badan ay ahaayeen masaakiin xoolo dhaqato ah kuwaasi oo ku hoos nool hiiraamaysiga waxa kale oo imaan jiray Soomaali kasta oo abaar soo qabata waxa ay ku barabixi jireen hiiraamaysiga beeraha sidaas ayuuna ku mutaystay deegaankaasi magaca Hiiraan maadaama qof kasta oo Soomaali ah marka uu yimaado deegaankaasi uu hiiraamaysan jiray magaca gobolka Hiiraan la yiraahdo ama Hiiraan magaca Hiiraan runtii wuxuu ku soo arooray taariikhda Soomaalida in badan ayaa lagu sheegay marka taariikhda la fiirinayo ummadeenu ma ahayn ummad wax qorto ama ummadda Soomaaliyeed ma ahayn ummad wax qorto hase ahaateedee waxa ka dhaalacan kartaa gobolku inuu yahay gobol magaciisu aad u fog yahay gabayada ay tiriyeen suugaanleyda Soomaaliyeed gobolku sidiisaba Hiiraan magacan Hiiraan waxa loo yaqaanaa markii maartay beerta ama dhulka beeraha leh ama beeraleydu markay badarka soo goosanayaan ee gacanta koowaad la soo gooyo gacanta labaad ayaa la yiraahdaa Hiiraan beerta soo hiiraamiya ama eraya noocaas oo kale ah marka magacan macnihiisa taas oo u dhigmaya markii loo macnayo Soomaali ahaan laakiin wuxuu la wadaagaa magacyadii gobolada Soomaaliyeed gumaysiga ka hor la dhigi jiray sida doolo oo kale sida ciid oo kale sida ximin oo kale oo ah dhulka hadda diriska nala ah
dhuusamareeb ilaa iyo godin labe waatana sayidku uu leeyahay reerka xiiman dhex yaallo xigsantuu ku tagaayay xanfar duulimiya marka gobolka marka taariikhdiisa marka way fog tahay magaca hiiraan la yiraahdo aniga waxa aaminsan oo isleeyahay markaan baxsi badan iyo baaritaan badan aan sameeyay gobolka intaan waa uu ka gudo weyn yahay oo ka balaaran yahay qaybintii gumaysiga ee Afrika la qaybsaday ee kilinkan shanaad iyo waxaas oo dhan iyo Ingiriiska loo gooyay goboladan Soomaali galbeed wax badan bay soo yareysay badka uu leeyahay gobolku runtii saas baan isleeyahay على حال مركا وحان رميسانهاي anigoo aan aaminsanahay gobolku inuu ahaa gobol inta ka balaaran ilaa Harweyn ilaa Lafweyn meesha la yiraahdo ama jallaqsi duleedkiisa in loo aqoon jiray Hiiraan ana sababta waxa weeye hadan koora waxa la iyadna loo diray baxthi ama baaris cilmi oo ku saabsanayd anbiyadii dhuhurul anbiyaa fi al-jazira al-arabiyya qabla bi'thati Mustafa sallallahu alayhi wasallam anbiyadii ka soo daahirtay jasiiradda Carbeed rasuulkeena alayhi salaatu wasalaam ka hor marka la soo diyaariyay baa saddex nabi ayaa macnaha ayaan ku qornay aan ku qoray aniga marka macallinkii ayaa waxa ay leeyahay ikhtasarta ala thalatha saddex maxaad ugu soo gaabsatay waxaan dib u baaray marka wixii jasiira Carabiya loo aqoon jiray Fayniqiyiintii hore Roomaanka waxay u aqoon jireen masaarida hore waxay u aqoon jireen inta marka waxaan ogaaday in inta ka gudub balaaran tahay oo ilaa 6 nabi oo jasiira Carabiya markii yanaha hadba heerka geographically ama geography ahaan in inta marba si ahayd waxaan ka wadaa markay gobolku inta uu ka gudub balaarnayo marba marka ka xigtaba uu soo yaraanayo badkiisa aad u soo yaraanayo sida maanta uu yahay uu ka balaarnaa marka gobolka waa gobol aad iyo aad u baaxad weyn wuxuu ka kooban yahay hadda ilaa 5 degmo oo degmada Beledweyne oo caasimadda ah magaalada Buulabarde Jalalaqsi Matabaan iyo Maxaas waa intaysan xukuumaddu dhexe ee Soomaaliya dawladda kacaanka ay sabab gabayo badan ay u diyaariyeen abwaano Soomaaliyeed inkastoo suugaanada ay kala dambeeyeen haddana gabayadii ugu horeeyay ee loo tiriyay magaca Hiiraan ayaa waxaa tiriyay Yuusuf Mbood oo ah abwaan Soomaaliyeed oo u dhashay gobolka Hiiraan sida uu mar kale sharxayo Ustaad Baarey oo ah macallin si gaar ah wax ugu og taariikhda iyo sidoo kale magaca gobolkani waxaana laga dheehan karaa suugaanta iyo gabayada ee Soomaalidu marka aad akhristid ama aad dhageystid waxaad ka garanaysaa gobolkani inuu magaciisu aad u fog yahay tusaale ahaan gabaygu ugu horeeyay ee la tiriyo oo magaca Hiiraan lagu soo qaato sidaan ka warhayo waxa tiriyay nin la yiraahdo Yuusuf Mbood oo asal reer Hiiraan ah hasa aatadeeda marka dambe uu guuray xagga iyo baay iyo bakool iyo jubooyinka dhulka hadda loo yaqaan ninka wuxuu yiri Hiiraan intaan degi lahaa ama soo howl mooge hooyaday intay xiran lahayd hereg lacaanay anigoon waxba hayn intuu hebeli eedaay hadamiyo laway baan u kacay hirirka maayooda marka herega maqaarka xoolaha way marka dadka waxa dharka intaan la helin oo yaana ma garatay marka waxay tusinaysaa xilligii dadku ay maartay dharka uu aadka u yara ninkii aan waxba haysanay maqaarku uu huwan jiray marka ninka wuxuu aaday marka xagga iyo hirirka maayo ma hadamiyo laway waa qabaa'il Soomaaliyeed oo daga gaar ahaan baa iyo bakool marka suugaantu marka gabaga marka saas uu leeyahay ninkaas aan ugu horeeyay magaca Hiiraan waxa kale oo ku soo xigay Cali Dhuuxna la yiraahdo oo yiri asoo qabaa'il Soomaaliyeed oo kala la hadlayo oo leh makaahilka doy uma qaxeen dagay Hiiraan daacuunka meesha uu kulayn kuma dalumeene dagal iyo haruur kama dhigteen dagalkii Harweyn macna Harweyn waa qalaaf agtiisa way waxa jira gabayaal badan baa jiro salaan carabi oo kale
magaca hiiraan buu soo sheeg qaadaya oo gabigiisa ku soo qodobo kamid ah ama tuducyo kamid ah marka ay u noqdaan baadiyaha ama beledkii ay ka yimaadeen dadkii hiiraamaystay waxa ay ku dhihi jireen marka la weydiiyo oo la yiraahdo halkee baad ka timaadeen oo badarkani la idinka soo siiyay waxay ku jawaabi jireen waxaan ka imaanay hiiraamaysiga sidaa ayuuna ku baxay magaca hiiraan qarniyo ka hor inta uusan gumaysiga Afrika soo gaarin عبدالقادر عمر إبراهيم RTN TV بلد أديو mahadsan yahay Cabdulqaadir Nadaar oo warbixintaasi ku eegayay magaca gobolka Hiiraan halka uu ka yimi iyo waliba sida ay u arkaan aqoonyahanka Soomaaliyeed iyadoo taariikhdaasina dad badan ay si weyn uga daahnayd maanta wata qiyaarteena daawanaysa wali barnaamij wareedka hawraarsan ayaa daawanaysaan qodobada kale ee barnaamijka ayaa sii guda galaya nabadoon badal jaamac xirsi oo kamid ah waxgaradka bulshada Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Muqdisho ee caasimadda Jamhuuriyadda Soomaaliya oo la hadlay barnaamijka hawraarsan ayaa waxa uu ka warramay isbeddelka dhinaca dhaqaalaha ee sameynaysa dawladda Soomaaliya waxa uu sheegay inay si weyn u farxad gelisay dadaalka wasaaradda maaliyadda ee wado laakiin wali waxa uu leeyahay si weyn inoogu muuqdaan hadalkii ka soo baxay wasaaraddaasi oo uu sheegay inay u baahan yihiin in bulshada Soomaaliyeed ay si dhab ah u arkaan wariyahayaga ay magaalada Muqdisho ayuu u warramay waxana uu marka hore ka sheekeynayaa isbeddeladii jiray sida uu arkay horta hadda ka hor ayaa waxaan maqlay wasiirka maaliyadda oo la dekadii intaasoo 100,000 baa nooga soo xarootay bishii beeraboodkii intaas nooga soo xarootay waxa lagu nool yahayna horta oo dhaqaalaha ama ku korna ama ku dhinma waa dekedan Muqdisho iyo aeroboodka Muqdisho dalka intiisa kale gacan inoogu jiro reer walba intiisa asaga haysto waa alif inta yadi aan ka hadlay ma garat intaas markuu ka hadlay hadda ka hor aad baan ugu farxay gabay dheer oo amaana oo madaxweynaha ugu tirinayaan ka tiri hasa ahaatee daruurihii hore ma hayno daadkoodii daruurtii cirka ka hortay daadkeedii ma hayno horta waxa ka hor inaad daadka aragto Soomaal roobku markuu doo oo biyo dhigi aragto marka hadda ka hor baa markuu yiri dhaqaalihii baa kordhay bishii intaas oo milyan baa nooga soo xaroonaysa horeyna aanu ogaa xaaladda meesha ka jirta yaa waxa dhigay in dhaweydadii gabay baryahan dhaafay hadalkii dhibaatadu markay ay dhacdaan iska meel dhigay balaan dhowr maanto kale u dhaaya leeyahay farmaajo markii loo dhibay xilkii dhabarka loo saaray hawluhu dhaqaajiyay rag oo dhaxalgal weeyaan dhaqaalihii waa kubcay la iska dhuuqayay ka dhaqamooyay kuwii hore sharci ma dhowreyna wadani dhaba inuu yahay dhaar ku marayay allow yaa dhowr farmaajo kale wadanka u dhiiba walba garata hasa ahaatee maashi saasahay ee aan lahaa dee waa la arki hadda waxaa soo baxday yaa unkadii ilaa roob baan ugu asqaysiyay awaarihiina nagama namin haddana ooduhu lulay roobkii daayay wali boorkii nagama nabin marka waxaan ka doonaynaa wasiirka maaliyadda wixii noo kordhay inuu na tuso taasaan ka doonaynaa waa ku farax waa ku maadsan yahay hadda ma muuqata dhaqaale kororka wasaaradda shaqada hadda horta anigu horta siyaasi ma yahay wasaaradda kama shaqeeyo laakiin hadday wax kordhaan shaqaan heli lahaa saasaan aaminsanahay inaan shaqo heli lahaa dadka shaqada raadinaya ka mid ahay dadka dalka u dhashaan ka mid ahay dalka muwaadiniinta ka mid ahay marka hadday wax kordhaan waxaan heli lahaa dhacdhaceedaanu arki lahayn waxaa la yidhi nin baa yidhaahday wax rag loogu maamaaha ya alla islaantaasi maxay bare weynaan jirta waaga yaraysuuye hargaheedaa lagu arki lahaa marka hadday dhaqaale badan tahay adeer waanu arki lahayn shaqaanu heli lahayn magaalada laga dareemi lahayo mushaarka ciidamada laga dareemi lahayo mushaarka shaqaalaha laga dareemi lahayo shaqaale cusub oo la qorayaanu dareemi lahayno marka waxaanu ala kulli xaal anigu dawladda mucaarad kuma yahay ma mucaaradayo laakiin waxa ay noo sheegtay inaan aragnaan doonaynaa taasaan adeer leeyahay watahay magaalada beledweynena mashruuc biyo dhaamina ayaa waxaa loo sameeyay qoysaska danta yar ee ku jira xaryaha barakacayaasha ee ku yaala magaaladaasi mashruucan biyo dhaaminta ah ayay dadkaasi lagu soo warramaya inay si wanaagsan uga faa'iideen iyagoo lacagihii lagu iibin jiray biyahana ay maalmihii ugu dambeeyay si weyn uga cabanayeen haddaba sida mashruucaasi loo fuliyo waxaa warbixintan ku eegaya wariyaha RTN ee gobolka Hiiraan
cabdulqaadir nadaara oo mar kale warbixintaasi nooga soo diray magaalada Beledweyne. waxa uu mashruucan si gaar ah u anfici doonaa dhammaan dadka aanan awoodin inay soo gistaan tubooyinka biyaha ee bishii lacagaha lagu bixiyo. nolosha adag ee dhanka biyaha waxaa la kulma inta badan barakacayaasha saboolka ah ee guryaha ka samaysan xooshadaha degan. waxaa iska garabsanaya mashruucani wasaaradda tamarta iyo biyaha dowladda Soomaaliya iyo waliba kambani lagu magacaabo Ceel Cali. gawaari la soo saaray booyad ayaa ka shaqeynaya dhammaan xaafadaha biyuhu ay ku yar yihiin. gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee siyaasadda gobolka Hiiraan ayaa dhiirigelinaya kambaniga bilaabay shaqadan iyo sidoo kale wasaaradda biyaha iyo tamarta dowladda Soomaaliya. ujeedaan maanta barnaamij gurmad degdeg ah dhaamin biyahaas oo socon doona muddo 60 cisho ah. waxaa iska kaashaday wasaaradda tamarta iyo kheyraadka dowladda federaalka Soomaaliya iyo wasaaradda biyaha iyo tamarta dowlad goboleedka Hirshabeelle. labadaas wasaaradood waxay iska kaashadeen dadkan saameysay fatahaadii biyaha biyo la'aantii ka dhacday magaalada ceelashii oo dumay waqtigii biyaha ahaa. waxay iska kaashadeen sidii dadkan loo gaarsiin lahaa gurmad biyo. labadaas wasaaradood waxaa support galiyay oo ka qaatay kaalin muhiim ah UNICEF waxaana fulin doona biidhaamintaas Ceel Cali Group oo kambaniga Ceel Cali Group ayaa fulin doona biidhaamintaas. biidhaamintaas waxay socon doontaa muddo 60 cisho ah. 60gaas cisho waxaa loogu dan leeyahay in dadka la siiyo biyo nadiif ah si ay u helaan biyo nadiif ah. waxaan iska kaashaday labada wasaaradood wasaaradda tamarta iyo kheyraadka dowladda federaalka Soomaaliya iyo waxaa iska kaashaday wasaaradda biyaha iyo tamarta dowlad goboleedka Hirshabeelle. labada wasaaradood muhiimadda ay leedahay waxa waa biidhaamintan in dadka مسؤوليه يعلشي حلقة في التهدئة اسكو درسامين إن البيئة نظيفة عبان لو كنترولو وحنا قيب مهم حقيقتي هيئة يونيسف iyo Ceel Cali Group oo ayagana ah dadka fulinaya kambaniga fulinaya biidhaamintan socon doonta muddo 60 cisho ah. 60 maalmood ay socon doontaa biyahan in loo dhaamiyo dadkan. saa u jeedaan haddaba waxaa socota kaamunkii kamid ah 4 xaafadood ee magaalada qayb kamid ayaa socota in biyo loo dhaamiyo. waxa ay fulinayaan projectigii ahaa in ay fuliyeen Ceel Cali Group. qayb kamid ah biidhaamintii way socotaa wayna bilaabatay. xaafadda Kooshin iyo xaafadda Holwadaag way ka socotaa hadda saaboorka ka muuqda Kooshin iyo xaafadda Holwadaag. labada xaafadood oo biyaha la siinayo waa Kooshin iyo Holwadaag. biidhaamintana way furan tahay in biyaha si nadiif ah iyo timeka dheedka waqtigu waxayna bilaabatay Agoosto oo maanta bisha 4 2018 waxayna ku og tahay October bisha 4teeda 2018. si wanaagsan waxaan kula daarmi lahaa kambaniga Ceel Cali Group oo fulinaya biyahan in la dhaamiyo iyo hay'adii ka qayb qaadatay. waxaan u mahad celinaa UNICEF iyo labadii wasaaradood ee wasaaradda federaalka wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha dowladda federaalka Soomaaliya iyo wasaaradda biyaha iyo tamarta dowlad goboleedka Hirshabeelle oo si muhiim ah isku xil saaray in markasta biidhaamintan ay u sameeyaan xaafadaha iyo magaalooyinka Beledweyne. waana mahadsantihiin. billahi tawfiiq. Cabdulqaadir Cumar Ibraahim RTN TV Beledweyne. markana magaalada Jowhar xildhibaanada baarlamaanka maamulka Hirshabeelle ayaa magaalada Jowhar ee caasimadda maamulkaasi waxa ay su'aalo ku weydiinayaan qaar ka mid ah wasiirada maamulkaasi iyagoo u yeeray isla markaana hordhigaya qaar ka mid ah su'aalaha ay baarlamaanku qabaan. wasiirka wasaaradda cadaaladda ee maamulka Hirshabeelle oo xildhibaanada hortagay ayaa la weydiiyay su'aalo fara badan oo ay ka mid yihiin in mid ka mid ah muwaadiniinta Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Jowhar muddo 3 sano ah uu ku jiray xabsi isagoo aan la horgeyn wax cadaalad ah. waxaa la weydiiyay sababaha uu xirraayay waliba arrimaha keenay in cadaaladda la horgeyn waayo iyadoo qaar ka mid ah mudanayaasha baarlamaankuna ay soo jeediyeen in magdhow la siiyo intii uu xabsiga ku jiray isagoo aan wax maxkamadda la horgeyn. wariyahayaga Cabdishakuur Shaasha ayaa warbixintan howraarsan uga soo diray Jowhar. kal fadhiga afraad ee baarlamaanka Hirshabeelle fadhiga 9aad waxa wasiirka afraad oo ah wasiirka cadaaladda Hirshabeelle Cawaale Ciimoy lagu weydiiyay su'aalo la xiriira cadaaladda Hirshabeelle.
qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka Hirshabelle ayaa su'aalo la xiriira cadaaladda hordhigay wasiir Cawaale Ciimooy oo ah wasiirka cadaaladda Hirshabelle haddaan garsoorkeenu oo inkee daciif yahay ama hadda aan cabsiyadeyn maxaa loogu gudbi waaya xamara dirsan annaga garsoorka xamar loogu gudbi waayo oo loogu hayaa 3 sano ninkaas asagoo wax habayna cadaalad heli maxaa kaaga qorshaysan in magdhowa uu xaqa u leeyahay muwaadinka Soomaaliyeed si uu cadaalad u helo maxaa kaaga qorshaysan in laga qaado ciddii mudan ma ku qorshaysan tahay 3 sano oo kaamil ah dhaqaalaha ninkaas iyo xuquuqda iyo magdhow uu leeyahay wax sahlan ma aha waxaan weydiinaa inuu noo sheego qoondadii ka soo aaday xajka Hirshabelle waxaa tahay marka loo fiiriyo madaxweynaha markuu maqan yahay iyo madaxweyne ku-xigeenku wasiirka keliya ee shir gudoomiyo golaha wasiirada sida aan la soconana waxaad laasheen dhammaan in shirkii qabaysliga la baajiyo sababtaas wixii kalifay inaad noo sheegto oo aad ku bedelataan WhatsApp-ka inaad ku shirtaan aad ku bedelataan wixii kalifay arrintaas noo sheegto wasiir waxaan ka warqabnaa gawaari ay leedahay wasaaradda dad shacab ah in ay wataan gaar ahaan magaalada Muqdisho maxaad kala socotaa degmooyinka dowlad goboleedka Hirshabelle qaarkood gudoomiyaasha oo degmadaas gudoomiyaha u ah ayaa waxay magacaabeen garsoorayaal maxkamadeed oo qaada dacwooyinka misana fuliya xukunno waana sharci darro sida aan wada ognahay mudane wasiir taas maxaa kaga jawaabaysaa haween la kufsaday kufsi haween oo isugu jira haween waaweyn iyo kuwa yaryar jirdil iyagana ka jirta gobolka Jowhar magaalo madaxda Hirshabelle maxaa kala socota wasiir arrintaas imise tababar oo kor loogu qaadayo xirfadda garsooraha oo aan ahayn waxyaabaha gaagaaban ee aad sheegtay ayaa loo qabtay garsoorayaasha Hirshabelle shacabkeedu waxay ku tagaan shabaab sababa cadcad dartood cadaalad darro ka jirto iyadoo cadaalad darro inta ka jirtay xafiisyada cadaaladda laga cararaayo waxaan aragnay kuwa inta laga xukumay oo shabaabna si kale u xukumeen haddii la baarana midii shabaabku sax noqoto cadaalad darradaas jirta xodogaal ma u tahay lacagaha laga qaado galdacwadeed iyo galxidhashada ay qaadaan maxkamaduhu lacagahaas ma waxa maamusho wasaaraddaada mise maamulkeeda waxaa iskale wasaaradda maaliyadda maadaama aad tahay albaabkii cadaaladda wasiirada oo adiga aad ka mid tahay 8 bilood sida aan ka warhayn wax xaquuq ma qaadan dowlad goboleedkana dhaqaale la'aan ma aha dhaqaale uu soo galaa madaxda sare oo xaquuqdaas lagu leeyahay ma laga yaabaa wasaaraddaada inay cadaaladda ay hor keento beerahan ugu wareegsan oo dhan xashiisha lagu beeraa waxaana soo gaaran maqlay in xataa ciidanka ajaanibta amniga oo dalka jooga ay arrintaas xataa xashiis loo fiir ka qayb qaataan wasaaradda ma la socotaa wuxuu sheegay in jiraan maxkamada oo mobile court ah tusaale ahaan wuxuu soo qaatay gobolka Hiiraan wasiirku wuxuu soo fiirin waayay gobolka Shabeellada Dhexe tuulooyin badan oo intii kala jira oo maxkamadaha laga samayn karo mobile court-ka anigu waxaa ka soo jeedaa beesha Eylo boqortooyada Eylo waxaa jirta inaan kaliya xildhibaan ka ahay hal xafiis oo Hirshabelle ku yaalo oo aan fadhino maamulna ma jiro cadaalad darrada intaas dheer maxaa kala socotaa wasiirow Cawaale Ciimooy wasiirka cadaaladda Hirshabelle ayaa ka jawaabay qaybo ka mid ah su'aalihii ay weydiiyeen xildhibaanada garsoorayaasha wasaaradda hay'adda bixinaysa fanka mar walbaba way kala hormarisaa marna Hiiraan ay u qabataa marna Shabeellaha Dhexe ka horeysay waxaa ku xigtay Hiiraan kii hadda u dambeeyay marka akhrinay waxa ay kii hadda u dambeeyayna wuxuu dhacay bishan aan soo dhaafnay oo 28 garsoor laga keenay gobolka Hiiraan ka horna waxa ka horeeyay Shabeellaha Dhexe marka waa ayaga mar walba soo kala hormarsan markastaba garsoorayaasha looma kala eexdo Hiiraan oo kaliya laga keenaa maahane labada gobol baa laga kala keenaa laakiin kii u dambeeyay baa hadda ka hadlay ugu dambeyn xildhibaanada baarlamaanka waxay cod u qaadeen in shaqo joojin lagu sameeyo garsoorka waana ay isku raaceen baarlamaanka Hirshabelle waa fadhiyaa laga bilaabo maanta mudane wasiir anaga garsoor aan aqoonsanahay ma jiro ummadaas yaa la baabi'in
garsoor soo iguma raacsanidin cabataada su-aalo weydiinta ayaa sii socon doonta wasiiro kale ayaa dhiman cabdishakuur shaasha RTN jawhar aad ayuu u mahadsan yahay cabdishakuur shaasha markaana waxaynu aadaynaa magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug ee bartamaha Soomaaliya maalmihii ugu dambeeyaba waxaa jiray isku tashi ay sameynayeen bulshada Soomaaliyeed iyadoo burburkii dalka ay gaarsiiyeen colaadaha sukeeye kadibna bulshada ay bilaabeen inay sameeyaan isku tashi ay ku sameysanayaan waxyaabaha aasiga u ah nolosha bini'aadamka deegaan hoos yimaada magaalada gaalkacyo ayaa waxaa laga sameeyay isbitaal ay u baahnaayeen dadku deegaanka iyadoo xarig jarkiisiina ay ka qayb galeen mas'uuliyiin ka kala socday qaar ka mid ah gobolada dalka gaar ahaan kuwa ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya sida warbixintan uu ku eegayo wariyaha RTN ee magaalada gaalkacyo Axmed Khaliif Geedi xildhibaanadan ka tirsan aqalka hoose iyo aqalka sare ee baarlamaanka dowladda federaalka Soomaaliya ayaa waxa ay ka qayb galeen xafladda xariga looga jareeyay isbitaal uu yeesho degmada Saddex Higle oo 40 kiiloomitir u jira magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug xubnaha xildhibaanada baarlamaanka aqalka sare iyo aqalka hoose ee ka socday Soomaaliya ayaa waxa ay kala hayeen xildhibaan Duniyo Maxamed Cali oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya iyo senator Abuukar Axmed Xaashi oo ka tirsan xildhibaanada aqalka sare ee Soomaaliya gudoomiyaha deegaanka Saddex Higle ee gobolka Mudug Khaliif Farsame ayaa ugu horeyn faahfaahin ka bixiyay hirgelinta isbitaalkan xaruntan caafimaad oo maanta aanu joogno sida hore loo soo xusay ama dad badan uu og yahay waxa dhisay oo asaasay bulshad yar oo magaalada dadka degan oo isku yimid markii ay dareemeen in ay tahay baahi asaasi ah ayay isku tashadeen waxayna dhiseen dhagaxa sida horeba loo yiri adna dhagaxa ana dhoobada marka isku keenno waxay noqonayaan wax la wada leeyahay oo bulshada ay ku intifaacayso sidaas dadteesaas lagu bilaabay howlkan weyn hadda aan joogno kulligiis iyo deydkan wareegsan waxa dhisay dadkan halkan taagan oo degmada Saddex Higle xildhibaanad Duniyo Maxamed Cali oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya ayaa sheegtay in ay muhiim tahay in lala xisaabtamo hay'adaha ka howlgala deegaanada Galmudug waxaana ay sheegtay in hay'adii ay ku cadaato musuqmaasuq si buuxda loola xisaabtami doono kuna lacag la'aan ma dhigaan Mudug iyo Galguduud wixii adduunka la siiyay wax ka mid ay qaataan waa in hay'adaha lala xisaabtama waa in la dabagalaa leeto anu guddiga baarlamaanka dib u heshiisiinta inta socodinta xaqarayntan ka mid ahay waxyaabo badan ribood ayaan Galmudug ka qoran doona baarlamaankan horgeyn doona hay'adda ay ku cadaato wixii loo soo idmaday ama wixii loo soo dhiibay inay sidii loogu soo fuliyo mashruuc aysan fulinna waxay la tahay donoriska ay ka timid Geneva ayaa xisaabtu tagi doontaa senator Abuukar Axmed Xaashi oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka aqalka sare ee Soomaaliya ayaa sheegay in wixii baahi ah ee ka jirta deegaanada Galmudug ay u gudbin doonaan dowladda dhexe ee Soomaaliya waa arin Saddex Higle inaan joogno waa niman ku talagalay in ay sheegaan ama ummadooda misaal ay u noqdaan wax lagu farxana weeyaan ayadoo cid inaan caawisay aysan jirin awoodda intaan la eg haddaad gaarteen ilaahay yaa mahaddaa iska leh kadibna Saddex Higle ayaa iska leh mahaddaa wixii karaanka ah ee xagga dawladda ah iyo xagga wasaaradda caafimaadka ah wixii akhbaar aanu ka geyn karayno waanu ka geynaynaa wax lagu farxa weeyaan wasiiradda caafimaadka ee dowlad goboleedka Galmudug Marwo Naciimo Maxamed Maxamuud ayaa waxa ay dadka deegaanka Saddex Higle ku amaantay sida ay deegaankooda wax ugu qabteen marka waxaan horta aan leeyahay reer Saddex Higle waxaad sameyseen isku tashi laakiin idinkoo abaartan ogaa 3 sano lagu soo jira soo maray maanta inaad dhisateen aad iyo aad aan ugu faraxsanahay waa ilaahay mahadde waa in aan canaananaa hay'adaha aan keennaa aan la soconnaa laakiin adiga waxa idin fiican mar walba idin qeyr badan sadaqada inaan la joojin oo lala baxo waxa ugu fiicanna waa inaan ama ceelal dhisataan iskoolada dhisataan isbitaaladiinana dhisataan Axmed Khaliif Geedi RTN Gaalkacyo وتغيرتنا داونيسا aad buu mahadsan yahay Axmed Khaliif Geedi oo warbixintaasi nooga soo diray magaalada Gaalkacyo oo ku saabsaneyd isbitaalkaasi dadka deegaanku ay ka hirgashteen deegaanka lagu magacaabo Saddex Higle oo hoos yimaada magaalada Gaalkacyo guud ahaanba waxay afmeer u ahayd barnaamijkii Hawraarsan oo si toos ah idinkaga soo baahayay stuudiyaha dhexe
ee magaalada Nairobi waxaana idila socodsiinaya anigoo Cabdilcasiis Barrow dhinaca farsamada iyo soo saarista barnaamijku waxa uu ahaa saaxiibkay Maxamed Xaaji Xuseen waxaana barnaamijka igala qayb qaatay Cabdi Axmed dhinaca kaamirooyinkana waxa inoo hagayay saaxiibkeen Paul tan iyo kulanti dambe barnaamijkan mid lamid ah intaaynu isku arki doona dhamaanta iyagaba waxaan idin leenahay nabadgelyo